ficilkan waxaa lagu fasiray nabiga sal alay wasalam sababa ay ugu diidaan dagaalka kacbada inuu dawaafo ummad oo dhan baa dawaafaysay mushrikiin oo dhan baa dawaafaysay waxay yidhahdeen ninkii shalay wiilasheeni laayay oo intaasoo dagaal nala galay ceeb bay nagu tahay in carabi ku sheekaysato maku iska yimi oo iska dawaafay oo nabad ku soo dawaafay oo meesha ciidamada joogin miyaa taas waa mid lagu sheekaysan maayo yidhahdeen ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كسر عشر كي تفسير القرآن الكريم كأه وعشر كي لو بقول يشنات سورة الفتح آية سدية تمناد مكبل عمانية عشر كو لا يوحي سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رصدي كساب سنيد حديبية iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam dadkii mushrikiinta inay beedkii u diideen iyo sulxii markii dambe dhacay iyo fadxigii ka dameeyay suuradaas soo digideedii waxyaabaha waa soo tilmaanay halakana bay'adii oo markii hore ama soo tilmaamay in alladina yubay'unaka inma yubay'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa inma yankusu ala nafsihi waman awfa bima ahada alayhi Allah fasayutihi ajran 'azima wa sawmar halakan markala lagu ceshay Ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu cabirayaa dadkaas naxariistii raali ahaansho inay heleen dadkii geedka hoostiisa nabiga heshiiska kula galay oo ahdiga kula galay inay dagaalamaan ay biqin maanta ay quraysh iska dhiciyaan laqad xaqiiqay ama laqad xaqay waxa dhaba radiyallahu ilaahi muraali ka noqday anil mu'miniina mu'miniinta inuu raali ka noqday la muqassam baa la geliyay qaduna wa xarfu taqiiq laqad radiyallahu ilaahi raali uu ka noqday waxa dhaba radiyallahu inuu ilaahi raali ka noqday anil mu'miniina dadka mu'miniinta إذا وقت إنه رالي كنا يبايعونك أي كولا مبايعونيين وعهدي كولا قليين إسكو دار سنيسين تحت الشجرة جيت لهوست هذه جيت دان عمر بواجد من قويدات بايرة هذا لكن وايد كأكون وحي الشيء إنه واي جيت كلفتي سيبه معايا لو على غيابة تدري كوف النوبل هاي كانوا هاي مركز دمي جيت كو سمرو هاي حمر بو هاي قرع عصاي كتاب القرآن يحضون جيت كو هذا جيت كاس أي هوستي شيرين وأنا جيت خير كان عيوي إذا وقت أيها إلهي رالي كان نقضي المؤمنين يبايعونك أي كولا مبايعونيين عهد يهيس كولا قليين تحت الشجرة جيد هوستيدي فعلم إلهي وحي أغاني جيد كوا جيد معروف والله يسلقر أشهد وعهدية عهد وحالي يدهني عليه وجيد لسلو وضع كرنا يوم وضدك صحابة هاي النبي كرنا ينجيدك فعلم إلهي وحي أغاني علم الظهور أول بوا أغاني ما في قلوبهم قوت وحي كجر إلهي أغاني أو inay maaragtay diintooda ku kalsoon yihiin ilaahay ku kalsoon yihiin rasuulka ku kalsoon yihiin arrintan ay ku ahdiga ku galiyeen dhab ay ka tahay inay fuliyaan marna ay inay ka baxaan diyaar waxin qalbigooda waxa ku jiro ilaahay ogaad kuwa munaafiqiinta ah waatii ama reer baadiyaha ahaayo ka haray nabiga waatii la yiri ilaahay qulubtiina waxa ku jiro ka warqabaayo been baa sheegaysan markay yiraahdaan shaqalatna amwaaluna waatii lagu beeniyay kuwaana ilaahay qulubtooda daacadnimo iyo wanaag inay u socdaan ayuu ilaahay ku ogaaday subhanahu wa ta'ala ساسو مركي إليه سبحانه وتعالى فعلم إلهي وحوق ما في قلوبهم قلوبته وحي كسوغا فأنزل وسودتي السكينة حسلون عليهم صحابة دي بكسودتي حسلون ده مركي لو سودتينا يو حسلون لو وسي way tahay mid waxa weeye markii gaaladii ay diideen sulxi yiraahdeen maxaa ku yeelin mayno inaan maxaa ku rahdaa in qofkii naga soo islaama diintiina soo inaan noo soo celisaan anagana qofkii ka soo noqday in soo celiyo hadaladaas kale markii ku hadleen waxa la kala qoray saxaabadu ka xumaadeen markii dambe ilaahay baa dajiyay subhanahu wa ta'ala haday markii dagaal ribi lahaayeen waxba iska iman lahaa midda labaad sakiinada kale ilaahay ku soo dajiyay waxa kamid ahayd geesinimada ah qofku inuu dhimasho ogol yahay san meel lagu dhaqaaqay maadaama dadka xaq ay diideen beedka ilaahayna dadkii rasuulka ilaahay u diideen diintii ay ka hor yimaadeen gaalada ah waa xasil ilaa kalsoonaati naftaada inaad dhimasho ogolaatay dagaalantid فأنزل السكينة حسلوني بالله كسدتشي عليهم كركوضة وأثابهم وحنا كأبا المريء فتحا فرشوا قريبا ولو فتح قاسنا إلهي وأوحي قري إن لبضا مكة إن لفرطوا دقال لقو قلوه إن يكهر مريد دون تخيبر رياضي النبي وكل رياضي إنه قري دونه مكانا إن يدبنا عيسو سنة كده من نقانيسو إنه مكة قري دونه عمرة الخضابة إيمانته سنة كده من رسوع عمريسان دونه عمرة دي بعد دي الله نجي فتحي مكانا وحا كهر مريء فتحي خيبر با كهر مريء marka ilaahay wuxuu ku abal mariyay oo asaabah wuxuu ilaahay saxaabadii ku abal mariyay fatxan furitaan loo furay oo ay maka ay khaybar furtaan weey khaybar midan khaybar baa lagu fasiray suurada fath baa leeyahay ereyada fatxiga ku badan fatxiga soo qariib dhow oo ay furanayaan meesha khaybar la yiraahdo
oo si waliba aad maaragtay ay maaragtay ku tagi doonaan ilaahay amarkiisa subxaanahu watacaala ومغانم غنيموين بو إلهي سبحانه وتعالى سي وأثابهم وحو كو أبال مريا فتحا تاسي كو عطفانتها ومغانم غنيموين بو إلهي كو أبال مريا غنيموين كاسو كثيرة بدن غنيموين كاسو يأخذونها يسو قادنيا حاليا دغايا inay si dhiga ku qaadanayaan waa qaniimada Khaybar weey meesha Khaybar waxay ka heleen maal aad u tiro badan Aisha waxay tiri hadiiska saxiixa Aisha waxay tiri waligeena timir kama aanan dhirgan ma gaajabeen ilaa Khaybar la qabsaday Khaybar markaanu qabsanay muslimiinta markaasaan gaajo naga xadhibtay markaasaan gaajo beelabtay وكان الله إلهي وحو أهادي عزيزا ألا عز له وأدومديسا كأدق وكو مجرمين تا مدح جريه إلهي سبحانه وتعالى حكيما الله وهذا إلهي سبحانه وتعالى أدومديس عزيزا وأهادي أحد كأدومديسا كأود بدن الله سبحانه وتعالى حكيما الله حكمت بدن وأهادي ومامل ونكسن وعدكم الله إلهي وإذين يبوحي خيبر بعد الشيء وعدكم الله إلهي وإذين يبوحي أدام مسلمين تهين مغانم غنيموين مغانم غنيموين كاسو كثيرة تفرق بدن غنيموين كاسو تأخذونها تسوق هذا نيسان فعجل وانا إذين سود الدجية لكم إذيك هدا مسلمين تيتهين هذه مدة خيبر بعد إذين سود الدجية غنيموين كان بدن السوق هذا مسلمين تبدل كل وحين فسيرة أبديهين إلى يوم القيامة وحي مسلمين الجهاد قالان ورن فتوحات كلا قبل أبو خيبر وحي كدم يورن عاد غنيمة لقاتي أنت كدم السوق نمبر هوازن يوحي لغا سوق هذا حوالي ميل والبا غنيمة إلى خلفاء الراشدين إلى ضدك كدم إلى ما القيامة مسلمين وحي جهاد قاتان نمبر لا بلوري كذا بالي فتوحات كإلهي وأبلغ هذا مسلمين تهديس قد جهاد قال أني فتوحات إلهي مسيرة برع المسيرة الشهري ومدى النبي محمد غنيمة waa loo xalaalay waa xadiiska ku soo arortay waxyaabaha nabiga la gaarka nabiyaashka la kaga duwanaabay nabiyaashka looma xalaalay غنيمة marka ummadiisana saas way ilaa yawm القيامة cidi jihad gashay غنيمة وعدكم الله إلهي وحدية وهيدا مسلمين تهين مغانم غنيمة كثيرة أفر بدن مغانم تاسو تأخذونها قادر يسوي إلى ما أنت قيامة لما كان غيرين ساس إلى هذا فعجل وسودة شيء لكم إذنك هذه مدة خيبر بيدين سودة شيء وكفوا وانا إذا كقبت أيدي الناس ضدك كعمه هذا عنكم إذنكم إذا كقبتوي وكفوا واقبتي أما واتشو شيء وحد هذي مرت كفك وحال يدا قفك شلقة قعدت شلقة قفك هبل وحال يدا يعني هدي كف هدي اللي واكقبتي معنا قفك عمه كقبتي وكعشيوي هذا لكم مركب وحي أصعد وكف إلهي وريبي أما واقبتي أيدي الناس ضدك عمه هذا إذا كقبت دقال إنكم مسوا قادر عنكم إذنك تانا محل ولا شيء ذا بالي إلى صدق قول بجريان علماء markii nabiga saxaabadii 1400 ay soo tageen oo magaalada Madiina soo baneeyeen oo Quraysh isku hor fadhiyaan xaramka agtiisa iyo xubadaybiin degan yihiin halka xaaladdu ka shidan tahay munaafiqiin iyo waxaan ka wadaa nimanka yahuudda ahaayeen nimanka maartay mushrikiin baadiye iyo reer baadiye ay waxa saamar waxay haweysteen inay Madiina bilaqay si fiican dagaal ku qaaday la waa ciidanka ka soo baxay meeshii dumarkii iyo waxa jooga hantidii wixii adigu dadku haysteen baa jooga يعني ماشي عكت مريم إلهي بامرك عليه سبحانه وتعالى تاسوها مد كلا وكف أيديكم مركي أي خيبر كدولانا وحا إيمان دونتا نمان قطفانية غير بادية واحد عن الصهيلية يقع قرب ويديستوي خيبر مريه هذا بربان سينا دقال كنا لقى مركاسا إلهي قاعد عموضا كقبت ويس خلاف فينه وحيد إنا قاعد نور لفتينا خير هنا لينا صوت مريا هاتين ما كان يهود أو هيلنا تاسونا مد كلا أما مدة صدحات قريش لفتها قعمه هذا لقى قبتي حرم كأكتيس مركي تشوجين تاسون وعمد كلوي مدة أنا اللي هو بدنية هاي خيرها مركي صوب بنية المدينة إن قريه هذا إلهي من بدقلية خيره تاسان اللي هو بدنية وكف إلهي واقبتي واتشوشي أيدي الناس قعمه هذا عنكم يدك تشوشي هي ولي تكون إلى أحاته ساسو إلهي دي سبحانه وتعالى هي ولي تكون إلى أحاته آية كف كاس لأن كقبتي ولأن كتشوشي إلى أحاته يعني إن هذا لكم كم هذا عليسان وما هذا عليسان هذا البحر وقدرناه تشكروا إن إله يقوم هذا عليسان أخين تاوي يولي تكون إن أحاته آية للمؤمنين المؤمنين وأحاته إلهي نعلو كقبتي دماعية إن بلدك ودي سوق قلنا إيوه كم قبلتك إيوه يهديكم إلهي ندكوهن ويسرادة المستقيمة توصل وتاس هدايك قالتاني إيماك كرستان ساس عليه سبحانه وتعالى لقد وحى نبا رضي الله إلهي نورالي كنقضي عن المؤمنين ضدك المؤمنين إذا وقت نورالي كنقضي يبايعونك يقول لما بايعون العهد يهشيس ما تقول جليين تحت شجرة جيد هوستيري جيد كانوا وحنا نقضي أهل عام
maalintii markay dhacday waxaan noo imaan soo maray meesha la yidhaha hawaazin markii nabiga sal ly slam nimankii hawaazin markay la dagaalameen iyagoo awdaas waadiga awdaas ay kula dagaalameen bay muslimiinta xoogaa jabeen iyagoo 12 kun ah oo 2 kun ay Quraysh ka raacday waagu nabigu fatx Makka dhacay ka bacdi 10 kun oo muslimiintii baa niman reer baadiya ka jabay oo yaaceen oo nabiga dad ku soo hareen meesha yaa inta yiraahdeen maanta yaraan noola ka adkaan may ereygaas gaf ku noqday ereygaas gaf geeli baa ku diday intay meel toga loo galay baa fallaar indhaha looga qaaday marka waxaan hadda uga socdaa geedkaas markii wixii saxaabadii dhawaaqa maxaa tiraahdaa yaa asxaaba shajara saadahay ninki yaa way raggi geedka hoostiisa oo bali ay raggi markaas hal mar soo gadoomay ansaartii iyo nimankii meesha u badnaa oo dagaalka Madiina maartay ka soo raacay nabiga oo gacan siin jiray hal mar bas waa ku wakan markii kalmadii maqleen bay soo rogmay hal mar ay soo gadiyay kulligood geedkan marka waxa weeye waa geed barakaysan in Allah leeyti mooyay ku gashanay jannada galay dhamaantood ilaa munaafiq khilaafi mooyaane taxta shajarati fa'alima ilaahi wuxuu ogaaday ma fi qulubin qulubtooda waxa ku jira oo maaragtay islaamka iyo kalsoonida u qabaan iyo ilaahi subhanahu wa ta'ala maaragtay ay uga dhameynaya arrinta ay heshiiska ilaahi kula galay subhanahu wa ta'ala ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa qulubtooda ku jira ilaahi ogaaday oo min as-sidq wal wafa runta iyo inay ballanka oo fin doonaan iyo inay ka rumaynayaan buu ilaahi ogaaday faanzala ilaahi waa soo dejiyay sakiinata xasilooni الضمانينة والرضا أيوة كسود شيء قلوبت عليهم كركض أيوة كسود شيء وأطابهم وحنا كو أبا المرية فتح فرش قريبا أو يعني فتح خيبر وي ومغانم أيوة كو أبا المرية كثيرة أو بضن تاسو يأخذون هاي سوق عضنية وأموال يهود خيبر أموال حوله هذه وي يبيروا هذه بيره يقول كنا بحال وريجين مسلمين تعال وريجين يجرا ما كده الشغالة وكان نقطة يجرا بيره وفلي كذي كلا بربع اللي يدي كنا يدي كنا بربع قاط بحسوا صارنا كانوا المسلمين حوالها كسوق قاضنا يجرا كشغين يهود ما كشغينيس حوالهم المسلمين تسوق قاضنا الجهات كوكلاية وكان الله إلهي وحده عزيزا ألا عز له وأضمه دي مارتي كأذك وعدو كان شريه الحكيم الله فلها أكثر ما عمل وناكسن وعدكم الله إلهي وإذية وهي مغانم غنيموين كثيرة فربضا غنيموين كانوا تأخذون أسواق هذا الإنسان إلى ما نتبع وحي المسلمين غنيمة إهلا فعجل وسود الدشي لكم إذا كمسلمين هذه مدة خيبر بدي سود الدشي قفكي آخرية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة الخلفاء الراشدين خيرة المسلمين إلى أمويين إلى عباسيين إلى ولقت سوء آخرية وحبضن بو أركايا وحد ملايين يسان كليه إلى كجزيرة العربية دقال كان يأخذتم معها وحضر كنتم تأيضوا لقد دقال لما العراق الشام لقد دقال لما وقتي مالتي أبو بكر وقتي عمري وحضر كيس أيضا لقى سوق قطبي أو قبرص إلى سوق قاري يضو لقى حصل لقى سوق قطبي أفريقيا لو قطبي السودان لقد دقال لما عبد الله بن زبيري وحضر كنتم بلاد السنة ديالتو إيران لقافي وتشينا حدود لقاري ما وراء النهرين يضو لقاري يضو مالتي لقاري تركيا لقاف ملو بالمري يضع أبواب يرب للسوق استاجي بعد ذلك دونتا وحاس يضع أندلس لسوق قد جبل طارق لقى سوق قد أندلس لسوق قلي بعد ذلك دونتا مسلمين في مصر يسوون مرين قف في تاريخ بدن آخر يوم مسلمين تلاذ هاي وحبوا أجانا يا لكن أنت بوك فور كور وريجنا بوك فور ووح ما قلت إلا ينهب سامي يلا ولا ينهب ساميه ووحنا أنا هاي إنه ميل ولا يندي وديوني وعدكم الله إلهي سبحانه وتعالى فعجل وسودت لكم إذنك هذه مدان وكف إلهي وإذا كقبت أيدينا صدقك عمه عنكم إذنك أيوة إذا كقبت إلهي سبحانه وتعالى إنسان مكانكم إذا شوقنا إلهي وإذا كقبتي كو غيرها إذا صدوا مرها مدينة إلهي وإذا كقبتي وي كو خيبر كعن صوصين لها يهودا إلهي وإذا كقبتي يولي تكون إلى أحاطه آية للمؤمنين أريداسو من كعبها قبشت على إذا كقبت إن المؤمنين آية النقطة ويهديكم صراط المستقيم إلهي وحن كنتوا سيء توصل الله سبحانه وتعالى دليل هيك أقسم بالله هذه كتوسية يعني ويهديكم يين كتوسية الله والصراط المستقيم توصل إلى هذه كتوسية أيوقع إذا كقبت الله سبحانه وتعالى عدو بس إلهي سبحانه وتعالى وأخرى لم تقدروا عليها وأخرى مت كلمة إلهي سبحانه وتعالى غنيموين كلوي فتح كلوي أخرى غنيموين بهذا اللي قصوا حلاي قرآن كتفاسير تقارنه وحي عبريان إيري أخرى ووحكة شيء كلوي marka ma fatxi ba sawa qaniimo labadaba tafaasiirtu waa qorayaan waa uqra fatxi kale weey ama qaniimo kale taasoo lam taqdiru aydan awoodin calayha korkeedu ilaahay idin balqaaday aydan awoodin marka culimadu waxay yiraahdaan midda leeyna ma awoodaan maxay tahay waa fatxu makka waa lagu fasiray waxa kale oo lagu fasiray faris iyo rum dawladihii waaweynaa imbaradoriyaadka ah ayaa mustaqbalka qabsan doontaan ilaahay ma aydiisi balqaaday labadiiba umar waqtigiisa dhulka la dhigay dhulka labadii dawladoodba
tii ka talinaysay furs iyo ciraaq ka talinaysay iyo tii shaam ka talinaysay labadaba cumar jooga dhulka la dhigay wa ukhraa tu kale oo ah fatuxaad ama qaniimooyin taasoo lam taqdirun aydan awoodin calayha iyada qad axaad allahu ilaahay baa koobay bihaa iyada idiin koobay ilaah baa idiin dilay bay ka dhigan tahay oo kayd ba idinku sii taalla waa idin sugaysaa wey inaad la wareegtaan awood baa ilahay u siiyey subxaana wa tacaala wa kaana ilahay baa idin koobay wey axaad waxaa qofki wixii la hareereeyo ilahay baa idin koobay wa kaana allahu ilahay wuxuu aday calaa kulli shay kulligii qadiiran kii awoodid badan wey alla subxaana wa tacaala hadduu ilaahay damco inuu wax kuu sahlo wax kuu sahlaanaya wey walow qaatalakum aladiina kafaruu halakana mushrikiintii maka waatay aad hawsha u wadeen oo lahaayeen xataa ay dhalinyarada soo diray in rabsha la kacsho dhibaato badan ay samaynayeen ilahay wuxuu haddii dagaal ka meesha xudaybiye iyo maka dagaal ka bilaaban lahaa quraysh waa jabi lahayd laakiin laba sababood dartood baa dagaalkaa ilaahay u baajiyey labada aayadaha gadaalka sheegaya walow qaatalakum hadday walow waqti qaatalakum idinla dagaalamaan aladiina kuwa kafaruu gaalay mushrikiinta quraysheed lawallow way jeedin lahaayeen aladbaara dabooyinkay jeedin lahayen waa carabi lahaayeen uma intaa kabacdi laa yajiduuna ma ay heleen weliyan axad weli ay ku tirsadaan maamulo u ah walaa nasiiran axad u hiiliyana ma heleen ilaa iyagu weli male ilahay muminiinta welile iyagu weli male shaydaan baa weli u ah bataan qur-aanka horkaso dalika biana aladiina amaan ilahay muminiintu weligood yahay wa ana alkaafiriina laa mawlaa lahum baan soo maray gaalada weli male sunat allahi ilahay jidkiisii weeye sunat allahi ilahay jidkiisii weeye arrinkaa inay gaalo iyo muslim haddii madaxa laga geliyo ay gaaladu jabto sunat allahi waa sunada ilahay jidka ilaahay allati jidkaas sunadaasoo qad kala tagtay min qabla hadda ka hor rusushii hore ummadii hore ku tagtay oo ilahay hore u jideeyey ilahay wuxuu jeexay inuu haddii muslim iyo gaal dadka nebiyaasha la socday dad kale hadday iska hor yimaadaan xataa mararka qaarkood hadii laga gacansareeyo laakiin aakhirka markay udambaysa guusha waxay raacaysaa dadka nebiyaasha la socda saas weeye la aqlimana kataba allahu la aqlimana ana wa rusuli taasoo kale aniga rusushayda raynayna ilahay sunat allahi ilahay jidkiisii weeye allati sunnahaasoo qad khala tagtay min qabla hadda ka hor walam tajida heli maysid nabi maxamed oma qofka lala hadlayo lisunat illahi ilahay jidku jeexay tabdiilan bedelaad ka heli maysid nabi maxamed si ka bedela si rususha hore loola dhaqmay intii raacday nabi maxamed madi inta la socota loola dhaqmi maayo sidii baa loola dhaqmaayo iyagaa guulaysanaya saas alayhi subxaanahu wa tacaala wa huwa ilaahay alladii allihii weeye halakana ayaantii maka markii sulxi bilowday oo la rabay in la heshiiyo oo waxaa la kala qoranayay habeenkii niman dhalinyaro ah quraysh baa soo dirtay waa la yidhahdaa kollay hadday soo direen wax kuwa xuma ka talaysaa soo diray mase dhalinyaro rabtay inay haysidii cno isa soo abaabushay bay ahaayeen wax kasta ha noqdee sida ahlu siyarku qoreen ilaa 80 ahaayeen markaasay waxay dabceen wax soo rida dagaal soo rida si aan heshiis u dhicin markay ogaadeen quraysh inay go'aansatay in heshiis la galo nabi maxamed la heshiiyo baa la yidhi arrintaa kala tuur fawday wadaan waa sufaha waxaa la yidhi dagaal bilrida rag baan laynaynaa si dagaalku isaga bilowdo dadkii waaridiyaha muslimiinta u ahaabaa 80 baa dhab siiyey waliba nabigaa duceeyana waa la yidhahdaa waa laga qabtay 80 oo si wada kulligood laba diblaysan baa nabiga loo keenay nabigu wuxuu yidhi waa cafiyan yihiin guryahoodii ha iska sii daayay iyagana dagaalkay soo qaadeen ilaahay baa gacmaha qabtay nabiga inta la socotana inayan nabigu usan halalaayo orano gacmahooda ilaahay baa ka qabtay si meeshaan fidna uga dhicin oo dagaal u bilaaban ilahay baa dagaalka joojinayay wa huwa ilaahay alladii allihii weeye kafa qabtay oo joojiyey aydiyakum mushrikiinta gacmahooda cankum idinka muslimiinta idinka qabtay wa aydiyakum wa kafa qabtay aydiyakum idinka muslimiinta gacmihiinana qabtay canhum iyaga goortaad gacanta ku dhigteena inaa laysaan ilaah baa idinka qabtay idinka joojiyey bibadni makata maka beerkeeda idinkoo ku sugan xudaybiya makay ku dhex jirtaa waxba uma jirta magaalada ilaa mufasiriintu waxay yidhaahdaan markii centerka magaalada bartamadeed laga soo cabiro dhowr iyo 3 kilomitir meelahaas waa iska magaaladii halkaas bibadni makata maka beerkeeda idinkoo jooga oo meeshii nimankii la dagaalsanaa ay deganaayeen deegaankoodii idinkoo jooga ilaahay baa iyagana gacmahoodii idinka qabtay oo gacmahoodii ma soo gaarin waa ka il horreyseen waana ka guulaysteen wey idinkana ilaah baa markaad ka awood roonaateen gacmihiina ka qabto aydan wax yeelin taas weliba waxay keeneen nimankaa mar allaale markii 80 la sii daayay waxay soo dhaweyshay heshiiskii inuu soo degdego waa dabceen nimankii way soo dabceen waxay arkeen inuu nabi maxamed nabad rabo arrintaasi u maaragtay arrintaas waxba akhlaaqda markii nabiga arkeen sida wax u dhaceen niman duulaan oo inta la qabtay markiiba la iska soo daayay arrin sahlan ma وهو إلهي الذي اللي هو يكفى قبتي أيديهم مشركين تسودوا شيء جعمه هذا عنكم إذا كذا قبتي وأيديكم كفى قبتي أيديكم إذا كان جعمهن قبتي عنهم كوا قبتين ومشركين تسودوا لي ببطن مكة بير كذا إذا كوكو سجنوي ساس إلهي سبحانه وتعالى من بعد أن أظفركم أنتوا إذا كوكو لي عليهم إياه وهذا قبتهم
انت إلهي دكو قولي إلهي باب القرآن كل شيء إن لقى عن رونادي ولا قبتوي أريجا ضفرية عديد على دها ماشي أنا فرحان كل جنيه بعد أنا أما قعنتها كل جنيه يونا عديها كل جنيه من بعد أن فركم أنتوا إلهي دكو قولي عليهم نمك السود دولي أو فوضى دولي أي إلهي قعمه هذين إذا كقبت إذا كان قعمهنا كقبتوي ساسو إلهي سبحانه وتعالى الله هاسوي عليه سايلوي dagaalka ilaahay baajinaya meesha sulxana laga rabaa waxa la dadka badan wa kana allah ilaahay wuxuu ahaaday bima ta'malu had amal fulaysan basiiran mid arkaayo ilaahay ahaaday subhanahu wa ta'ala nimanka mushrikiinta marka wax lagu la dagaalamo waa sameeyay ilaahay muxuu dagaalkan maanta u joojinaya lama soo wada shay doona laakiin nimanka wax lagu la dagaalamo waa sameeyay dambiye galeen qoladan qurayshta ma ka deganay hum iyagu alladina kuwa kafaru gaaloobay horta waa gaaloobina gaalimo banaanka ay dhigteen gaalada waxa la isku diriroway وسدوكم وحين إذا كتشيرين عن المسجد الحرام مسجد الحرمة الهان وإذا كتشيرين وادم بكلاي قلين والهذه جنوات شوشية هذه جنوات شذي وذنا ونعيه كذي أما هذا الكهرباء قاعد والهذه جنوات شوشيوي معكوفا حال ويهاي من الحبسي هذه أن يبلغ إنه جار لقى حد بسي محل وماشي لبوق لها ومن أحد أما مكة هل كان سكت شوشي وحيد هذا حوالي تدرات الجيل وذي نبي وهرش مخبين وماشي كوك على جيل بودي بالي هذا جيل أصلا أهل سير هذا واحد لين جيل أصلا وشوشي وحيد هذا ما كل سوق الماء يقول إذا كنا مسوق سوق الميسان وهل كان سكوا عليه وحوالي مركز لما لقوا جورعي ماشي اللي هذا حديبي على لقوا جورعي حوالي هل حصل لنا نقدم هم يجوا الذين كوي كفروا قالوا بيوي وسدوكم إذا كمل عي وإذا كتشوشي عن المسجد الحرام مسجد الحرمة لها يقول هذه جينا منعيه معكوف الحال ويميل الحبسي أن يبلغ إنه جار لقى حبسي محله بوس لو قال لها مكان إيش حولها لو قال يشري أو محل كيس هذا منوي ومكان هل كاسنا كحبسي إن هذه سو جار أنت سود بيه كلامه مسلمين تنوع حبسين وقالوا مسلمين تنا حركة وديدين هذه جينا حركة وديدين ولولا رجال لبس صوت بإلهي لك كشرية تنوحوا وعدد مؤمنين ورجال يدور سويت شره أنت نبي مدينة شري أنت إسلامين halka lagu caburinayo aan gaalada ka dhexbixi karin islaamnimada aan soo faxsan karin way meesha lagu hayaa maka dadkaas hadda dagaal gashaan oo seefta barbar kala madhaa dad badan oo muslimiin ah meesha ku dhiman lahaa baalay taa horta dagaalku waa loo baajiyay midda labaadna nimankan mushrikiinta ah oo dhibaatada badan sameynaya in badan oo kamid ah ilaahay wuxuu naxariis baa u soo socoto oo islaami doona iyaga in la iska laayaga laftooda abadbaadido labada arrimood ayadu sheegaysa walawla rijaalu rag hadii la laayahay rijaashaas oo mu'minuuna إلهي سبحانه وتعالى رميي يا قرآنكو هذه الشيء قال برجالكم الشيء قفك أهل الإيمان كرجال بكشيء لكن ذكوري بكشيء وحى إلهي رمان اسمه وحكول إلهي وحى عن إلهي رميسني ولولا هدي لما لا هدي لا رجال رك ولولا رجال رك هدي لا مؤمنين يا ونساء هوين المؤمنات هدي لا ألا أرجع سمي لم تعلموهم أيضا قرنين قال ذي كل احترام المشركين تقول شيء بكل احترام لكن قرن أيضا قرنين أنت تضعوه من العكت مريسان هذه لا يهي أنت تضعوه معناها هنا العكت مريسان وكنت متان إلا قفك مركي دتك لقعت كهذا والله يوم وحويه والله عكت على مري والله كنتم توي أنت تضعوه من كتشوك ستان أو كنت متان فتصيبكم إذا كأسيبتم منهم حق هذا إذا كأسيبتم كوا مؤمنين قال الله يسين مركا قال اللي يسيجنا الله يسين إذا كأسيبتم معرة دم إذا كأسيبوا معرة وحويه الإثم والعار والعيب وي عيب دنبي isla socdo way xayir waa lagu ceebina xirnayaan annaga waan la yahay ku isku diinta hayna la joogana waa la yahay ceeb baa la idin ka dhigaya mid kale waxa ka iimaanaysa dhibaato oo hadda waxaad ogaanaysaa dadka hadlaysan qaar ka mid ah muslimiin ahaayeen oo kafaara la idin ka baahnayaan dhibaatooyin baa iimaanay aan muslimaan meesha kulaysan way marka taas ilaahay subhanahu wa ta'ala fatusibakum idha kaasibtum minhum kuwas gaalada ku dhex jiro muuminiinta macaratu dhibaato iyo ism iyo dambi iyo ceeb bigayri cilmi عرّيجة واحد ليه كلمة واحد لو استعمالها جرب عدد سو وعمارة واحد شيء عدو ليه عيب ليه معنوي بغير علم الآن حالة أكو سجنتين ضد كان مركز الله ينسان إذا كان علم الآن كو سجن كان هذا مركز وحوي لبعضها سيتكسو قادو هاسو عميد رجل مؤمنين إيه شوابت الأولاد لما بشيدين بوي أي الذين لكم القتال تقالكم إذين إذن بالهاي الحيوي هذين أنت سيتشتين رجل مؤمنين دمر مؤمنات هذين تشرين وآن مركز أيضا كور قمين oo dagaalka cagta inta marisaan marka ay dhibaato ku asiibtaan dhibaatada ka soo gaadho marka taa hadaysan jirteen la aadina lakum alqital dagaalka ilaahay waa idin mila ina marka dagaalku gashaan baa la idin milaha taas la idin ku diiday waa mid liyudkhil Allah fi rahmatihi midda kale liyudkhil Allah ilaahay inuu soo galiyo darteed ayaa dagaalka la idin ka joojiyay
في رحمته نحريسي إلهي مسوق لي ما يشاء عدو دونه بدن حتى لبدي السنة أنت ما كان لك أبسم بعد بدن سو إسلامي بدن بسو إسلامي أو بحنكر هذا مرة ترى ما كان بدن بسو إسلامي وحن أركينا هذا رجي وويناي خالد يكون جيران عمرو بن عاص سو إسلامي ومدينة إيمانه اسبدل بعد عدورة hadhowna intii kale seef baa lagu islaamiyay inta badankooda wixii hata ajalu iimaan waqtiga ka hor marka dadkaas naxariis baa ilaahay la maagay in seef iskala tagto iyo iimaan u qoran yahay maya liyudkhil allah ilaahay inuu galiyo fi rahmatin xariis sama yasha cidu doono law tazayyalu haday suucmi lahayn kuwa mu'miniinta ah rijaasha iyo haday suucmi lahayn ragga mu'miniinta oo dhaha mu'minaadka haday gaar u bixi lahaayeen oo gaalada gaar uga suucmi lahaayeen la cadabna waan cadaabi lahayn allagana ku kafaru gaaloobay oo minhum quraysh kamida cadaaban aliman cadaa xanuun badan oo seef baan ku qaaday idin dhihi lahayn dadkaas baa ka soo waa gaar uga bixi waayay kuwa muuminiinta baa ku dhex jira way law tazayyalu wada waa laga dhigi karaa mar kale gaalada law tazayyalu haday gaaladu gaar u bixi lahaayeen oo muuminiinta ka bixi lahaayeen ama law tazayyalu haday muuminiintu haday u kala soo lahaayeen law tazayyalu haday muuminiintu gaar uga bixi lahaayeen la cadabna waan cadaabi lahayn oo dagaal baa ku cadaabi lahayn alladina kafaru ku gaaloobay oo minhum quraysh kamida cadaaban aliman cadaa xanuun badan ya meeshaan ay fuqahadu waxaan oo fiqiga ka sii daayaan ka waran haday gaaladu intay mu'min dagaal soo qaadaan muslimiinta ciideeda ku soo duulaan ay iska soo hormariyaan dad muslimiin oo maxaabiis oo silsiladaysan oo hubka iska xijinayaan ka waran gaalada iyaga hubka ma lagu wada ridayaa mise waxa la hal daay duruufta ku xiranta fuqahada qaaraan balba ka turin laakiin duruufta ku xiranta haday muslimiintu dhan wada qabsanayaan la israaciyo saas ay fuqahada qaar leeyihiin haddii laakiin meel intay qabsadaan muslimiinta inta kale u badbaadayso meeshaasna si loo farsamayn karo dadka muslimiinta hubka lagu ridi maayo ilaa waxyaaba iska iimaanaya fiqiga markii aad fuqahada u tagtid geeday u harsadeen wax badan bay ka shaqeeyeen muslimiintu ilaa hadda waa ku dhex jiraan waxaa la yidhi ilaahay baaba dagaalka u baajiyay dadka muuminiinta dartood ku dhex jira dagaalka u baajiyay ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala wa ukhraa mid kale bu ilaahay subxaanahu watacaala oo fatxi kale ayaa ilaahay idin maaragtay ayaa ilaahay idin ballanqaaday wey taasoo lam taqdiru aydan awoodin calayha korkeeda qad xaad allahu ilaahay baa koobay bihaa iyada ilaahay baa idin maaragtay idin koobayo idinka dhigay wey aad idin sugaya wey aad heli doontaan wey ama makaaba lagu fasiray ama waa maaragtay futuxaadka muslimiinta kusoo socda wey hadda ka bacdi wakaana allahu ilahi waxaad calaa kulli shayin qadiira shay kasta mid awood alle subxaanahu watacaala walow qaatalakum hadday idinla dagaalami lahayen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay lawallow way jeedin lahaayeen aladbaara dabooyinkay jeedin lahaayeen uma intaa ka bacdi laa yajiduuna ma ay heleen weliyan axad weliya oo talahooda qabto iyagoo ku tiirsan yihiin walaa nasiir mid u hiliyana ma ay heleen sunnat allahi jidki ilaahay weeye in gaalada iyo nebi iyo inta la socoto iyo gaala hadday iska hor yimaadaan nebiga inta la socoto ay guulaystaan sunnat allahi jidki ilaahay weeye allatii sunnadaasoo qad khalad tagtay min qabla hadda ka hor tagtay rusushii hore lagula dhaqmi jiray ummadahoodii walan tajida heli maysa lisunnati illahi ilahay sunnadiisa iyo jidkiisa tabdiilan bedelaad marka kama helaysid bal saasaa waa sunno ilaahay maaragtay sunnatullahi fi khalqihi wahuwa ilahay alladii alihi way kafa qabtay cankum aydiyahum gacmahooda idinka qabtay cankum idinka idinka qabtay waa qoladii soo duushay wa aydiyakum gacmihiinana ka qabtay canhum iyaga bibadni makata maka gudaha beerkeeda idinkoo ku sugan ama caloosheeda idinkoo ku sugan min bacdi an adfarakum intuu idinku guuliyay calayhim korkooda intaa qabateenna ilahay baa gacmihiina ka qabtay inaydaan waxyeelin saan dagaal u dhicin kaana allahu ilahi wuxaaday bimaa tacmalu had camal falisaan basiira mid arkaaya mushrikiinba quraysheed baa laga hadlaaya dambi wax lagula dagaalamo waa sameeyeen laakiin maslaxad kale ilahay wadaa hum iyagu alla mushrikiintu quraysheed aladiina kuway kafaru gaaloobay horta waa gaalnimo waa haystaan wey wasaduukum idinkana manciya idinka jeediya cani masjid alxaraam masjidka xurmadan aan idin diiday inaad gashaan walhadyi hadyigiina joojiyo iyagana yani hadyigiina joojiya aa wadeen mackuufan xaalo u yahay mid la xabisay hadyigii an yabluqa inuu gaaro laga xabisay maxillo booskiisa lagu qali jiray oo u gaarka ahaa meel gaara xoolaha lagu qalaa maka walowlaa rijaalu rag haddii la yahay mu'minuuna raggaasoo mu'minuuna mu'miniina wanisaan haween haddii laleeyahay haweenkaasoo mu'minaatu lam taclamuhu aydaan aqoonin an tada'uhum inaad ku tumataan oo cagta marisaan oo ku istaagtaan oo laysaan fatusiibakum markaa idinka asiibto minhum dadkaas mu'miniinta rag iyo dumarka ah macaratun ithmi dembi iyo ceeb isla socda bigayri cilmin waxaa la waa dembi iyo cambaarin wey bigayri cilmin cilmi la-aan ay saas idinku dhacdo wey aad maaragtay markaad bigayri cilmi arrintaa ku samaysaan laysaan ka bacdi ceeb idinka soo gaadha hadhowdi wey taasuna waxa weeye ilahay wuxuu la adina lakum alqitaal dagaalka waa laydin ogolaan lahaa laakiin taasaa jirtay dad baa meesha ku jira muslimiina liyudkhil allahu ilahay inuu geliyo ayuu maaragtay idinka qabtay markaa dagaalkan u baajiyey liyudkhil allahu ilahay inuu geliyo fii raxmatin xarisa man yashaa kuwa hadda aan muslimiinta ahayn inuu geliyo culimada qaar baa waxay yidhi kuwa laftooda muuminiinta hor meesha lagu haysto
ayay loola jeedana waa leeyahay liyudkhil allahu ilahay inuu geliyo fii raxmatin naxariista man yashaa qoftu doono oo kuwa hadda mushrikiinta laftooda inay in badan soo islaamayaan low tazayaluu hadday gaar u bixi lahayn kuwa mu'miniin tahay lacadabnaa waan cadaabi lahayn aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo minhum kamida qoladan mushrikiinta quraysheed cadaaban aliima cadaab xanuun badan baan cadaabi lahayn bu alla subxaanahu watacaala id waqti ayaanu cadaabi lahayn bu ilahi subxaanahu watacala halkaasay ku xirantay id waqti baan cadaabi lahayn jacala aladiina kuwa ay ka jacala ay yeeleen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay ay ka yeelayeen fii qulubihim qulubtooda alxamiyata ficil iyo qabyaalad xamiyat aljaahiliyati jaahiliyada xamiyadeeda iyo ficilkeeda iyo qabyaaladeedii ficilkan waxaa lagu fasiray nabiga sal alay wasalam sababa ay ugu diidaan dagaalka kacbada inuu dawaafo ummad oo dhan baa dawaafaysay mushrikiin o dhan baa dawaafay cid baa dawaafaysay waxay yidhahdeen ninkii shalay wiilasheeni laayay oo intaasoo dagaal nala galay ceeb bay nagu tahay in carabi ku sheekaysato maku iska yimi oo iska dawaafay oo nabad ku soo dawaafay oo meesha ciidamama joogin miyaa taas waa mid lagu sheekaysan maayo yidhahdeen ninkii qasab buu kusoo galay oo quraysh waa ka baqay taas waa mid midda labaad waxaa ka mid a xamiyaday sameeyeen markii heshiiska la kala qoranayay bismi illaahi raxmaan raxiim warqadii lagu bilaabay amaa raxmaan falaa naclamu bay yidhahdeen mama naqaan bay yidhahdeen bismi allahuma qor waxaad qortaa biismika allahuma ku qor bay annagu bismigaa shaygiisa ma naqaani markaasaa nabigu iska tiri buu yiri ku qor bismika allahuma qor markaasi haddana waxay yidhahdeen maxamed haadaa maxamedu rasuulullahi markuu qoray la qoray cali baa qoraayay warqadda wuxuu yidhi war maxamed rasuul allah haddaan ku aqoonsanay kulama anaan dagna beydkana kuma diidneen annagu rasuul kuma aqoonsanin maxamed ibnu cabdullahi qorkaasaan kugu naqaanay ana xamiyada la sheegaya waa waxaas anaaniyadaa wey xamiyada markii qabyaalada maaragtay waa wax aada iyo aada u xun xamiyada noocaan oo kale ama ficilka noocaan oo kale ah waa safiihnimaa ku jirta wax yar bay ka kacaysaa dareenkeedu ka kacaya sankaa wada baranaya xoogaa yar markii la yihahdo qabiilka xoogaa xurmadiisi baa la taabtay bug waa kaa id waqti jacala ay ka yeelayeen id waqti jacala ay yeeleen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay fii qulubihim qulubtooda ay yeelayeen alxamiyata ficil iyo qabyaalad xamiyat aljaahiliyati jaahiliyadii diin la-aan tahayd qabyaaladeedii waa mid isku layn jireen reer hebel baa maanta saana yeelay ceelkeeni bay fara saareen xoolaheeni bay taataabteen gabadheeni bay la hadleen wiilkeeni bay halka xoogahan taatureeyeen bug waa wax isku kici jireen oo kale wey tiibay maanta qabyaaladii waa ficilkii wey faanzala allahu ilahay baa soo dejiyey sakiinatahu sakiinadiisa ilahay soo dejiyey calaa rasuulka isku dejisa xasilkiisa oo saxaabadu lama ficilamin waa sabreen waa dul qaateen faanzala allahu ilahay baa soo dejiyey sakiinatahu xasilkiisa calaa rasuulka kusoo dejiyey wa cala almu'miniina mu'miniintan kusoo dejiyey wa alzamahum ilahay wuxuu laazimiyey nabiga iyo saxaabadiisa kelimata taqwa kelmadda alla ka cabsiga kelmadda alla ka cabsiguna waa laa ilaha ila allah laa ilaha illa muxamad rasul kelimatu tawxiid kelmadaasaa ilahay laazimiyey wa kaanuu waxay ahaayeen nabiga saxaabadiisu axaqa kuwa u xaqle biha kelmadda taqwada kelmadda laa ilaha illa allah u xaq lahaayeen wa ahlaha ehelkeedina waa ahaayeen ehelkeedina iyaga ahaa kelmadda iyaga ahlu ahaa iyaga uga xaq lahaayeen ismu tafdiilka dee kuwa mushrikiinta gaalada aan ogoleyn bay uga xaqleeyihin iyagaa u xaqle kelmadda taqwada ah kelimatu laa ilaha iyagaa u xaqle iyagaana ahlu ah ya laga yaaba maanta in la yihahdo waxbaa lagu tartamaya marka waxaan lagu tartamayo qofkaan waxa le maanta hebel tartanka isagaa iska leh laakiin hawshaan loo diraayo ehelu ma aha waan oran kara taas maaha saxaabadu xaqna waa ulahaayeen ehelna waa weeye labadiba wey wa kaanuu waxay u ahaayeen xaqa kuwa xaqle biha kelmadda taqwada ah laa ilaha illa kuwa xaqlay ahaayeen wa ahla ehelna waa u ahaayeen wey ilahay baa saa dhahay subxaanahu watacaala dadka waa la sharfay iimaan baa lagu sharfay markaasay waxay noqdeen dad nebi loo diro oo nebi raaca oo nebi maxaan ku barbar istaaga dadka ugu khayr badnaa bay noqdeen wey ummadaha ilaahay soo diray kuntum khayra umma marka la leeyahay ummad nebi raacda oo gacan siisa saxaabada nebi maxamed ugu khayr badan saas wey wa kaana allahu ilahay wuxuu ahaaday bikulli shay kulliga caliiman kii ku cilmi badan buu ilahay ahaaday subxaanahu watacaala ilahay waxaa shay kasta mid ku cilmi badan wey id waqti ayaan ilahay cadaab aalima dhanansiinayna buu yidhi ilahi subxaana watacaala kaan aayadda tan hore ku xirtay kelmadahana wey low tazayu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaab waan cadibi lahayn bu ilahi subxana id waqti baan cadibi lahayn cadaab alima dhanansiin lahayn jacala aladiina kuwa ay ka yareen kafaruu gaaloobay fii qulubihim qulubtooda alxamiyata ficilo iyo qabyaalad iyo xamiyat aljaahiliyati jaahiliyada xamiyadeedii jaahiliyada waa dadkii waqtigii diin la-aanta weeye jaahiliyada dhaqankeedii faanzala allahu ilahay baa soo dejiyey sakiinatu calaa rasuuli kusoo dejiye wacala almu'miniin oo iyaguna waxaas ma ay gelin ficilaya ma ay gelin wa alzamahum ilahay baa laazimiyey nabiga saxaabadiisi kelimata taqwa kelmadda alla ka cabsiga laa ilaha illa allah maxamed rasuulullah wa kaanuu waxay ahaayeen
بها كلمة وكانوا وحيا حقق وأحق ما بدن بها كلمة توحيدك وكلمة التقوى وأهل أهل كذا وأهل بي وأهايو كان الله إلهي وحاذا بكل شيء كل عليم الله كل علم بدن أيها الله هذا سبحانه وتعالى والله مجتمع وضد الشرع اسكم مدها وأسلامتها وذا عابدي واسكم نقنها وحبك كل بدلين وانتي إيمان إلهي رميين والنبي محمد القرآن كان على رتان هلا القرآن كان قفكي دب أوقات ومعاني سقات وكل رقمه قفك يسبدلها qofku ma aha qofkii caadiga ahaa ee shalay wax qasay wax qadibaay ma aha marka dadkii quraanku bay ka fogaadeen mooyaane waxa weeye qofkii isagoo adduunka joogo jannada qofkan isagoo adduunka joogo jannada gal aakhirada jannada gali maayo qofkan adduunka jannada ku gali quraankan isaga jannadii adduunka joogto weey qofkii iska dayacay isaga iska dayacay saas weey saadarteed buu ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwana waxa ku jira taqriibka iyo sidii jaahiliyada wala u shaqeystaan kuwa kana naxariis baa ku degtay waxa wanaagahay ma yaqaanin إلهي سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق واتي كدوديين هايين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه خيار هذه آوي ومركي سلح الدبي دعاي عمر عشان تروح كل هذه ومين حق تاجني قالوا أنا حق له تاجني كينا قد التامين سجنك كيا قد التامين النار قلي محن دينتي أنا أسير إن مدة اللي ده تقول لي أنا هاي قفك نجس وتجا سمع النساء قفك أنا نسوي آدم بسوي لنا يا محن لنا كعبد الجلم منه نمك وبقينا كعبد النوب بنية ما نراها waxyaabahaas cumar watay dadkoo dhan ay saas ku raacsanaayeen laakiin tiiba ilaahay wuxuu leeyahay riyadii nabiga markaa wuxuu ku yiri miyaa kugu dhahay sanadkan riyad miyaadan oran waa ku riyooday oo la riyada nabiga waa xaq miyaa kugu yiri waa sanadka waqti miyaa ku sheegay maya waad gali doontaa wiil waana dawaafi doontaa adoo nabad galiya sidii bay noqon doontaa sanadka dambe noqon doontaa laakiin arrintaas suluxa waxay noqotay wax walba fura u noqotay wax badan fura u noqotay wiil لقد حقق صدق الله إلهي وأرمي رسول كيسي الرؤيا رياضي بأرمي بالحق حق حال يضع كل رياضة سكون هوي رياضة سو إلهي أرمي سبحانه وتعالى بالحق أو بالصدق يضع رون كل هوي حياة رياضة سيحي لا تدخلون واد جليسان أو جليسان المسجد الحرام ساتك حرمة لها إن شاء الله إلهي يدو إدمه إلهي ما هذا إن شاء الله إلهي وعليه نقال الله ينبر يا علي إن شاء الله هيا إلهي سوى وعن كان واردي عندنا والله مشيئة قادم معي الله سبحانه وتعالى لكن نقال لنا بريا مشيئة هنا نحول إن شاء الله ونراهن إن شاء الله ونراهن لا تدخلون واد جليسا المسجد الحرام ساتك حرمة الهبات جليسا إن شاء الله إلهي هدو إدمه آمنين إذنك آمنا نباتك بقي المركز سوق جليسا محلقين حالات آمنين حالاتك وآمنوي محلقين حالاتك وحيرانية رؤوسكم مدحياشينك وحيرانية ومدح الحيرانية يساوي ومقصرين كوا قابسنية حالاتهين رجع قارنا قابسنيين قارنا حيرانيين أو صدح شربوا حير رحم الله المحلقين كوا تما حيرانية الله نحريس والمقصرين يا رسول الله كوا قابسنا رحم الله المحلقين هو حيرتي الله نحريس يا رسول الله والمقصرين مرلبان رحم الله المحلقين مرصد حد كوا حيرتي الله نحريس والمقصرين مركز صدح مركز مرفرات كوا حير رحم الله المقصرين كوا قابس الله نحريس على قاتي ama xaramka ahaato markii xajka caadiga ahaato ama cimraha markii timaha la xiiranayo ayaanta hore cimrada waa dhow rabo in aad dawaafkiisa hadii xaj tahay taa timaha waa jaranaysa in la had laakiin markii ay tahay ama cimro tahay ama xajkaaga dambe timaha waa in la xiirtaa ka fadli badan in la gaabso in la xiirtaa ka fadli badan ay saddex ducaa ku dhacday ducadii afraad buu qofku qaadanaya hadduu timaha qaar deysto saasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam waa tiyo kale محلق إذنكم آمنين وتمها حيرانية وقابسانية لا تخافون حالة إذا بقين بالي مرك آمنين إيا لا تخافون الجملة آيات كتيرة حوما كلا دونا عليه آمنين إذا نوا مرك يسوق لها بلدك باتي واحدة بعطاء لما يكون صدح مع الموت بالله قبحي واتيك مرك هشيس كده عيلو إنا صدح مع الموت شوقي سنة كده عمرة القضاء بيشها بشي هذا كلا إمو صدح بيرو عنو قبحي نامكا بلدك ودنا ما بيقبحي لا إلا يسكون عايك بقياني هشيس مع الأول كلا ما يعرض وبنيين buurta ka soo daawanayeen jabal abu qays buurta ka soo daawanaya markaasuu nabigu markuu galayeen intuu ciidamadii xoogaa uga soo tagay raggii qaar meel xaggaas ayuu hubka wuxuu la soo galay huban nala soo gelin bay yiraahdeen xoogaa seefahan oo galka ku jira qofka jeena qaaran yahay ilaa waa mushrikuuna lama aamini kareen seefa la jeena qaaran yahay waxa la yiraahdaa as-suyuf fil qarab ayaa la laalaadsanaya hubka kale waa laga soo tagay iyo gaadiidkii waxa laga soo tagay markaasay dawaafeen maanta nabigu waa u duceeyay qofkii maanta xoog mujiya waxay yiraahdeen maxamed wuxuu wataa niman ilmaayo ku qatay madiina waa meel beere iyo timir ku yaaleen ilmaayo soo cotay bay yiraahdeen rag iska wada leecaya meesha maray markaasuu laba buurta ka soo daawanayeen markii la simeeyeen meeshaan labada u dhaxaysa labada kaabadahan kacbada ku jira
arkaanta ama tiirarka kacbada ku jira qaybta ku aadan waa qaybta idibaaca la sameeyo qofku intuu muruqa soo saaro halka marada intuu gacanta saa loo gasho jig 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 saddexda jeer hore markay sameeyeen bay iska nasta marka intii dambe waa la iska dhaaf afarta jeer caadi baa loo dawaafay laakiin mar labaad markii kacbada kaga aadana tartiib baa loo soconaya markii ay bidhaantooda meesha usoo muuqataan xoog bay u soconay hadda muslimiintu waa sameeyeen hadda sunna sidii baa lagu socdaa wey ayaantaasaa la jidiyey markaasi nabigu qofkii maanta xoog iska raadiya allahu naxariiso nabiga u duceeyey wixii gala si fiican yeela markaasi rig say yidhahdaan war nimankaa tira dhilmaaya soo cotay wallahi hilib gelbi kasoo dhergamiya waabaya hilib gelbi kasoo dhergamiya kuwaan wuxuu hakanayaa ma jiraan bilahi mushrikiintii سأل سبحانه لقد صدق الله إلهي وحي سبحانه وتعالى فعلم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق إلهي رسولك سريدي وهم الشيء بالحق لا تدخلون واتقليسا المسجد الحرام ساتك حرمض إن شاء الله محلقين آمنين حالاتك وآمنة محلقين حالاتك وحرية رؤوسكم مدحيا شوط ومقصرين كوا سنة معنا مدحيا شوط لا تخافون حالة أيضا بقين إنك بقين تنا وحوي أنت بلدك تشوفين أنت سيب حي منه وحي الله كبقين ميني أو وحوي أمام بكل سمعيا عبادتي فعلم إلهي وأوجاده ما لم تعلم وحيدان أوجين يا وحيدان أوجين إن سلحان فائدة كنلان دونته إن هذا الله لابته وعلى الضوافين إن فائدة كالكسو كيان سلح لجره هذا نبض أكون قشان إذا كان فوضى تشيلين إسلام مركا خيبر يملك الذين فرو سلح حاجة شيء ما كوا إلا فرتك دلته حصل فعلم إلهي وأوجاده ما لم تعلم وحيدان أوجين فجعل إلهي وحي علي من دون ذلك يعني تاكسوكي فتحا قريبا يعني قريتان كان مكان قري لها كسوك إلهي وحدين يالي فتحا قريبا فريتان دو أيو إلهي دي يالي فتح قاسنا وحوي وفتح خيبر أقب ستان تاسو إلهي دي يالي فجعل من دون ذلك فتحا قريبا تاسو إلهي دي يالي سبحانه وتعالى فتح قاسين مركا هلان مسلمين تي وكو قولي سنة سبحانه وتعالى ساسو عليه سبحانه وتعالى فجعل إلهي وحو يالي فعلم وحي إلهي أقادي ما لم تعلم وحيدا نوين فجعل إلهي وحو كيالي من دون ذلك أرنتا كسوكي فتحا قريبا فتحي كدو تنقلي تانكا من دون ذلك وحو إنا ما كدقال كو قشان وهلك آد قشان إلهي وحو كذا وحو يالي فتحا قريبا فتحي كدو بيالي سبحانه فتحي ويالي فتحي كسو قريبا دو ساسو عليه سبحانه وتعالى إلهي لقد صدق الله إلهي لقد حق صدق الله إلهي وأره الشيء رسوله ورسول كيس بالهدى الرؤيا ريادي وإلهي وأره الشيء marka dadka muslimiinta ah iyagoo safar ku soo jira hadii quraanka lagu doorkay riyada inay rumayso waa cadaatay quraanka baa ku soo arooray awal nabiga riyadiis kale ku ekay bil xaqi xaqni ilaahay ugu sheegay la tadkhuluna waad galeysaan al masjid haram saadka xurmada laha insha Allah ilaahay haduu idin ka dhigo aaminiina xaalati kuwa aamin aan dib la kulmayn muhalliqiina idinku xiranay ruusakum wa maqasin idinku gaabsanaya la takhafuna xalaidan ka cabsanay way cabsi jirin faalim ilaahay wuxuu ogaaday ma lam taclam waxaydaan ogeyn fajacala ilaahay wuxuu yeelay min duuni dalika arinta ka sokay فتحا قريبا فتح دوب إلهي ذي يلي ودوان شبضا أو الله سبحانه وتعالى إن كوكو ليستان قبستان خيبر تاسو إلهي ذي يلي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى فجعل من دون ذلك أي من قبل دخولكم مسجد الحرام مسجد الحرام كقريتان كيسا إشارة أنا واحد أسعطها فجعل من دون ذلك ذلك هذا صباح يكون عيسى من قبل دخول المسجد الحرام بس الحرام كأنت إذا قلن كهر أي أهين كلا إلهي أقادي إنه فتح قريب إدي السماء وفتح هاي مكة فتوح بكهر الهاي هذا كأت كارا قال هذا قنيمة كهر الهاي قنيمة ذا مكة وحوي وحكهر من قنيمة دي في خيبر مكان قنيمة نقول ما يرحوا هذا واجد مولود دين دونا طلقة نقول دونا ساس إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى هو إلهي الذي الله هو أرسل ديره رسوله ورسول كسب بالهدى هنو الله ديره يو دين الحق دين حق الله ديره ليظهره إلهي إنه ككر مريوه على الدين ديمها أردن كله دمانت ديمها أردن دمانتود دين دمانت إلهي الدين الإسلام تقول ككر مريوه أي النبي محمد الله ديره هو إلهي الذي الله هو أرسل ديره رسوله ورسول كسب بالهدى هنو الله ديره يو دين الدين والدين الحق دين حقنا الله ديره ليظهره إلهي إنه ككر مريوه دين كاس دين تا إسلام كحقه إلهي إنه ككر مريوه على الدين كله دين دمانت إنه ككر مريوه وكفى وحكى في بالله إلهي شهيدا مرخانتي إلهي كافية أيوة كتشوف الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وحكو كافية شهيد كافية على أنه نبي صادق إلهي وحكو كافية شهيد على أنه نبي صادق نبي محمد النبي صادق إنه يهي صالح فيما تقبل وحلقة ورمينا والنبوي إلهي سبحانه وتعالى رسول المديسة إلهي بقى مرخانتي كعوي وكفى وحا كافية بالله إلهي بقى كافية شهيدا مرخانتي
nebi maxamed inuu rasuulkiisi yahay wey saas aayaddu socotaa muxamedun rasuulullah tanna waxa weeye nabiga sal alla alay wasalama iyo saxaabadiisa ayaa halkan waxaa laga sheegayaa laba sifo oo midna tawreed ku qoray markii ilaahay tawreed kaga hadlayay nabiyullaahi maxamed iyo saxaabadiisa tawreed sifaa lagu sheegay injiila sifo kalaa lagu sheegay laba sifo kala bedelan labada sifo waa lagu arkay nabi maxamed iyo saxaabadiisa محمد النبي محمد رسول الله رسولك إلهي وي جملة اسمية يا جملوينك وحب بدنت الجملة محمد النبي محمد رسول الله رسولك إلهي وي محمد هو رسولك إلهي عدي شاكرين لهي يعدي وكلا دور الهيد بقى نبي محمد هو رسولك إلهي تاسوا النبي قلت أي مؤمنين تينا والذين يكون معه لتشري ورميي والصحابة سأهانا الشداء وكو أدقوا على الكفار قالوا وهذا اللي قاعد عليه ويا قلنا قريش تعالوا laha waa la diriraynaa nimanka waxaana loo ka celinaya ashidaa kuwa ku kakan weeyey calalku faari gaalada bay ku kakan yihiin ilaahay subxaanahu watacaala oo aaba yeeli maayaan kal asadi calaa fariisati sida libax maaragtay neefka duloon la arkoodoo kale bay ku yihiin baa liyi ruuxamaa kuwa isu naxariista wey baynahum dhexdooda isu naxariis badan wey ya kuwa isu naxariis badan wey oo dhexdooda isu naxariis badan nafi wax walba isu quurayo wax walba maaragtay saasuu ilaahay ku sifay dadkii muuminiinta sifaadkan dadka muuminiinta qofka waxa muslimka ah waxaad waxaan kaga sugan tahay ma mid tahay mismada taraahum waad arkaysaa ilaahay yiri muuminiintii rukacan tana waxa weeye taas waxay ahayd dhaqanka iyaga dhexdooda ah inay gaaladana ku ka yihiin iyo dhaqanka iyaga ka baxsan oo gaaladana inay ku ka yihiin muuminiinta dhexdooda iska jecel yihiin way soo naxariis badan yihiin tana waxa weeye cibaadada ilaahay taraahum xaalad arkaysid bari waad arkaysaa bari rukacan xaalay rukuucsan yihiin sujuud rukuuc badan yihiin sujuud badan yihiin cibaado badnaana waa lagu sheegay habeenkii markii xaafadaha la dhex maraayo waxaa la maqlayaa caawa xaafada saxaabada waxaa la maqlaya intaas oo guri oo quraan ka baxayo salaatuleyl la tukanayo hugum ka baxayo waxaas waa quraan salaatuleyl lagu tukanayo waxaa mase shinni baxaysa hugum baa laga maqlaya saas weeye marka saasay ahaayeen taraahum waxaad arkaysaa rukacan iyagoo rukuucsan sujada sujuudsan waa xaalo rukacan xaala ay yihiin kuwa rukuucsan oo rukuuc badan sujadan sujuud badan يبتغون يجوا طلبايا فضل طلبايا فضل جاس أرزاقنا والو شيء جنة والو شيء جنة يجوا طلبايا من الله إلهي كطلبايا يو رضوان على أحشو إلهي بفضل جيس طلبايا وجنة كطلبايا وأرزاقنا كطلبايا يرى الأحشو بإلهي كطلبايا أنت أصلا عبادة إلهي وي علامة كلو لو قرتم حيتها سيماهم الصمد دودي علامة دود أي علامة توم سيما ده حاليا ضبط حوالها لو قلنا علامة الصمد ده حلو قلنا marka siimahum calaamadooda iyo sumadooda fii wujuuhihim wajiyaashooda ahaatay ya min athari sujuuda raadkeeda xaalay ka ahaatay ya ama xaale waxaa ka dhigtaa sida kii hore fii wujuuhta khabarka meesha ku tacalluqsiisna ku tacalluji min athari sujuuda raadkeeda ayaa aad culimad u sharaxeen qofka muuminka oo musalliga oo salaada badan oo sujuuda badan oo cibaadada badan wejigiisa waa iska nuuraya maaha sujuuda kabta halkan ka samaysmaysa calaamada madow halkan ka samaysmaysa taasi waa ku jirtaa laakiin nuurka wey laakiin waa goorma adduunka masoo aakhiro labadaba aakhirana waaba ka haya xubnaha xadiistii nabiga sheegtay inta weesada la mariyo inay dhalaalayso adduunka intay joogaanna nuurka qofka cibaadaysta wejigiisa ka muuqanaya siimadu marka waa calaamada wejigooda ka muuqata oo iftiinka nuurka wejigooda ka muuqanaya siimahum calaamadooda lagu garanayo sumada lagu garanayo fii wujuuh majiyaashooda min athari sujuuda raadkeeda ahaatay oo ah وجياشود إن افتيمايو ذلك كاسي مثلهم وتصالحه هذه صفته ذا وي في التوراة حالك وسكناته وي أنت هذا صوشي من التوراة بكفرنته كان في التوراة ماشان بالمناسبة أنت أنا كجد بين صحابي عمرو بن العاص واجي لقلي الشام يا مصر إياه بيت المقدس واجي لقلي عمرو بن العاص ومصر قلي مركا ويلكيس عبد الله بن عمرو بن العاص وصحابي وين يسقنا حديث أوريتشري markii dambe wuxuu galay dawladnimo iyo xoogaa xadiis wax ka warantay Abu Hurayra ka xadiis badnaa buu yiri laakiin markii dambe dawladnimadii wax badan iga tageen ayaa wuxuu haray kutubtii hore oo Tawreed kutubtii hore wuxuu ka helay meel maktabadahoodii markaasuu hal rati intuu qaado ka rartay markaasuu akhristay Tawreed waxaan ka akhriyay buu yiri ayada xalaa soo mareynay shaahidan oo mushira ayada xalaa soo mareynay maaragtay ayada xalaa soo mareynay ayuu maaragtay كأخريبي مكاسو وحن كلو كوارك إنه ليه صفات كنبي ودم ما كقرن إنه وحرزا للأميين سميته كمتوكل أريس أسقى البخاري بس صار كتاب التفسير بعد كهلي سورة الفتح كتاب التفسير البخاري قال كسر كوارك يسان حديث سوى ده
kaga hadlayo nabiga sifaadkiisii cabdullahi ibn camr ibn caas baan ka helay kutubtoodii wey aayaddaas hadda suuraddeenna suuraddan ku jirta qaybteeda hore iyo intaanoo kaloo la socota tawreed bay ku qoran tahay kaas ugu qorayd wey tanna waa tawreed sida ugu qorayd wey nabiga sifaadkii saxaabadii nabigu lahaayeen wey maxamedun rasuulullah waladiina macahu sifaadkaas marka dalika kaasi mathaluhum tusaalahooda weeye iyo sifadooda fi tawraati tawreed iyada ku sugan wey arrintaas intaas waa tawreed inta ku qorayd maxaa yeelay wixii ku qoraa ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum waa midda kale taraahum rukucan sujuudan inay cibaado badnaa yabtaquuna fadlan min allahi waridwan intaasna waa cibaadadoodii siimaahum fi wujuhi min athari sujuud tana waa calaamada kale oo lagu garto intaasuu tawreed bay ku qoray tan kalena waa sifo kale oo yaab badan mathal raa'ica wey oo injiil ku qoray wa mathaluhum tusaalahooda fi linjiili injiil dhexdeeda ku sugnaa wey ka zarcin ya wamathaluhum tusaalahooda iyo sifadooda fi linjiil xaala uu ku sugan yahay ka zarcin dalag la beeray oo kale wey zarciga waa iniinta dhulka lagu rido zarci iyo qarsi baa jira qarsiga geed weyn haddaad ka soo geysid soo rujisid isagoo taagan aad xididada dhulka ku tallaashid kaasoo kale qarsi baa leeyahay zarci lama dhaho zarci waa iniinta dhulka lagu rido markaa soo baxaysa markaa soo dhalanaysa weya ka zarcin bay la mid yihiin tusaalahooda injiil ay ku lahaayeen ka zarcin maaragtay iniin dhulka lagu riday bay la mid yihiin zarcigaasoo akhraja bixiyey shadahu lamaanihiisii ama fiidiisii shadcigu waxa wey geedku markuu soo baxo oo yar yahay uu soo baxo marba dhinac baa caleen kaga soo lamaanataa marba caleen baa kusoo lamaanayaashiisii marba dhinac baa caleen kaga soo lamaanataa caleemahaasu geedkay tabar u yeelayaan si u kaco u xoogsado caleemaha hadba gees kaga soo dhalanaya geedkii xoog yahay shadcigu kaas weya kuwa hareeraha kaga dhalanaya wey caleemaha hareeraha kaga dhalanaya wey taas weeye zarcigaas akhraja bixiyey shadahu fiidiisa ama lamaanihiisa kuwa hareeraha caleemaha kasoo dhalanaya fa aazara uu adkeeyey huwa shadcigii hu zarci zarciga waxaa xoojinaya kuwa kan hareeraha ka dhalanaya oo shadciga ah oo lamaanayaasha ah kuwaasaa zarciga xoojinaysa xoog u yeelaysa fastaqlada marka uu qara weynaaday geedkii adkaaday geedka waa kore waa adkaaday fastaqlada uu qara weynaaday fastawa uu ku ekaaday calaa suuqa jiridiisa isku taagay wey ya geedkaasoo yucjibu zuraaca zarcigaasoo yucjibu zuraaca dadkii beeralaydaha cajab gelinaya iyo taasa ilahay ku matay tawreed saasa injiil ku qoray marka aayadda see tashbiih u socdaa wuxuu u socdaa marka hore nebiga keliya diinta lagu soo dejiyey axad keliya u ahaa waa geedka meesha iniinta lagu riday meesha waxaan lamaanayaasha hareeraha kaga dhan abubakar keen haye khadiija bint khuwaylid cali ibn abi daalib zayd ibnu xaarisa bilaal ibnu rabax soo tiri casharatu mubashiriin cusmaan ibnu cafaan saciid ibnu raggii keen casharatu mubashiriinkaas kulligood dadka ugu horreeyey tartiib bay ku socdeen marba marka ka dambaysa ilaa marka dambe intay bataan ay noqdaan dad fara badan ay noqdaan ilaa marka dambe dunida ay u dhigtaan wey u fiirso taas wey geedkaas tashbiiha wey wa mathaluhum tusaalahooda fil injiil ay xaaluu ku sugnaa ka zarcin dalag dhulka lagu riday buu ka mid ah iniin dhulka lagu riday taas zarcigaa nabigaa lagu shabay zarcigaas akhraja bixiya shadahu lamaanayaashiisii hareeraha caleemaha ka baxaya oo geedka tabarta u yeelaya wey fa aazarahu shadcigii ama lamaanihii ayaa u xoojiyey hu zarcigii buu xoojiyey fastaqlada waa adkaaday oo geedka wuxuu noqday geed xoog leh qara leh yani qaliid buu geed adag buu noqday fastawaa wuxuu ku ekaaday oo ku istaagay calaa suuqi jiridiisu isku taagay yucjibu zuraaca beeralayda isagoo cajab gelinaya dadka beeralayda ah isagoo la yaabay argeedkaan muxuu samaaday alla geedkaan muxuu si fiican u baxay saasoo kale wey saxaabadii nabi maxamed saas wey axad nabi maxamed bay ka bilowdeen qofba si qof usoo biirayay waxay noqdeen geed sida ula samay dadkii wax beeri jiray ay la cajabeen ay la yaabeen suu geedkaas u samaaday u fiicnaaday maxaa ilaahay saa u yeelay liyaqiida ilahay inuu carageliyo bihi miiga alkufaara gaalada inuu ku carageliyo ilahay saa u yeelay ya ibnu taym imaamu malik ayaa wuxuu leeyahay kuwa rawaafida wuxuu la jeeda qoladii waxaan ku jeedaa maxay ahaayeen qolada khawaarij saxaabada wax ka sheeg oran jiray waa gaaloobay 7 saxaabi inta kale waa gaaloobay Umar iyo Abubakar iyo lacanadaay oran jiray waa gaaloobay kuwa iyaguna waa yihiin laftooda raafida laftooda saas u lacanadaan dadkaas saxaabada wax ka sheegay ayuu oranayay qof kasta oo asxaabtii nabi maxamed u caaysan noocaas oo kala yani waxa weeye kufaarta ku jira waxaan marba saxaabada nabi qofka hadduu nabi u caraysan yahay khayr ba male ibnu taymiya lafta saas u soo radaya war badan uu ka hadlay mawduucaas dadka saxaabada culaadiyaha inay khayr lahayn maxaa yeelay liyaqiida ilahay inuu ku carageliyo bihim saxaabada alkufaara gaalada ilahay inuu ku carageliyo ayuu ilahay saa ugu dhisay waa la dhisay ciidan la dhisay xabad inuu dhulka inta lagu riday laga yaabay kasi u baxday saasaa laga dhigay وعد الله إلهي ويبوهي الذين كوا آمنوا رمي وعملوا عمل فلأسر حتى أعمال وناكسا ومنهم كذلك الصحابة كمدة مغفرة بالله في إلهي ويبوهي أجر عظيما وين أي إلهي ويبوهي سياسة الله سبحانه وتعالى صحابة النبي محمد
هو إلهي الذي عليه ويرسل دير رسولك سبيله دهنو لا ديري ودين الحق دين حقنا لا ديري ليظهره إلهي ليظهر إنه موجيه أو ككوريسيو إلهي هو حق دين حقه على الدين إنه ككوريسيو على الدين إنه ككوريسيو كل دمانتي دين ودم إنه ككوريسيو يا دين دمانتي إلهي ككوريسيو على الدين كله دين دمانتي إنه ككوريسيو إلهي سبحانه وتعالى وحكى له الدين مشروع لذا وحلي النبي الله محمد دين سنتي تبي وحكى له الدين دين تكلم والله نسخيبا diimaha kale oo dhan ka koraysa waxa weeye waxa lagu ciyaaray waxa lagu dheeleelay waxay dadka hadda haysta diimaha kala sheegto oo dhan waxay wax ku casameynaya waa aragtay waxay ku kalsoonaa karaan ma haysta yudharu ala diin kulli saas ilaahi subhanahu wa ta'ala wa kafa waxa kaafiya billahi ilaahi shahiidan maqaanti ilaahi baa ku kaafiya oo ilaahi baa rasuulnimada inaa rasuul tahay ilaahi baa maqaanti kugu filan weey muhammadu nabi muhammad rasuulullaahi rasuulka ilaahi weey halkaas halka lagu tusiyay walladina ku maahu nabi muhammad la jirana ashidaa ku adadag way calal kufaari gaalada ay ku adadag yihiin way ku adag badan way ruuxama ku isu naxariisasho badan baynahum dhexdooda way taraahum waxaad arkaysaa rukaca xalay rukuucsan sujuud rukuuc badan iyo sujuud badan oo ku arkaysaa baa ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii lagu arkay way yabtaquuna iyagoo dalbaaya fadl iyo dheeraad min Allah ilaahay xaqiisa ka dalbaaya ilaahay bay janno kaga rajeynayaan cibaadada ay khayrka iyo ridwaan raali ahaansho inay janno galaana waa rabaa in ilaahay raali ka noqdaana waa rabaa labada arrimood bay u socdaan سيماهم على مدور لقوا قرنا في وجوه مجياش وأهاتي من أثر سجود الرات كذا وي نور يفتين كبحاية ويضدك وجياش ذو ما أنت قياما يفتين كبح دونا أدوك أنا والله أركايا قفك عبادة استوات قفك تارك صلاة كوجهك سمرك على كتبات فهم يساع قفك إنه صلاة كل تعمل صلاة تكن لكن قفك صلاة دي سؤال في عنتها وصلاة بدن وجهك صلاة آخرنا يوم يا حديث صحابي حديث كورينا عي ويسوي ورينا حديث باشيخ يريناي markaas waxa soo galay nin habeenkii salaad fuleey tukada wajiga iftiimay markaas inta xadiis soo jeeyo wixii qofkii habeenkii tukada maalintii waa wajiga soo nuura saaragi qoraya xadiiska waxay moodeen inuu xadiiska kamid yahay lafdiga ku daray mudraj baa la yiraahdaa xadiiskaas oo kale hadalku joojiye kal wajiga ninkii uu bogay wixii ninkii habeenkii salaad cibaadaysta maalintii waa wajiga soo iftiima markaas ay qorteen rag hadhow waa waxa rag baa ku doodaya xadiiska kamid ahayd iyo kamid ma ahayn ninkii meesha soo galay bay ahayd taasoo kale weyn سيماهم على مدود في وجوههم حتى من أثر السجود سجود هات كذا ذلك أرن كاسي مثلهم تصالحه ذوي في التوراة كل صفة ذوي في التوراة كل صفة كل هاي التوراة أو توراة كل سجنة ذوي ساسك وهاي ومثلهم تصالحه هذا في الإنجيل حال الإنجيل هذا كزرع شيء لا بيروي أما دول كلام طلع إنين اللي في ذوي زرع جالس أخرج بحشي شطأه لما رياشتي أما في ديس واحد هذه وأكو هريرة كبحاية فكلا حوتشنا فأزره مركا وحوتشي كي هريرة كبحاي وكي مارتي دلقي حوجيوي فاستغلظ واتكادي فاستوى او كو اكادي على سوق اريغا شاطئ او خلي وخي دعلله ابا لي هذا سيده هذا شاطئ البحر بضح مارتي اما شاطئ النهر وبيجي قركيسا بض قركيدا وحساسو كلام ayaa la yiraahdaa ereyga shadiga laftiis fastaqlada waa adkaaday markaa geedkii markuu lamaanayaal la helay zarciga ahaa fastawa waa ku ekaaday ku joogsaday ala suuqa jiridiisa isku taagay way yujibu zuraaca geedku isagoo xaan ku beeraleyda ka cajab gelinayo way qofka beeraha yaqaan oo beeraleyda haduu shayga la cajabay maxaad maraysaa qof aan beer baaqo la cajabaya haduu la cajabay marka kelmadaas waa noo imaan doontaa yujibu zuraaca ليقيد إلهي إنه عرقليو بهم إيجا أيوه إلهي ساس حق ويا لصحابتي الكفار قالوا وعد الله إلهي وأوياه الذين آمنوا بهم وعملوا عمل فلا أسهل حتى أعمال ونكسب ومنهم صحابتي كم من مغفرة بالنافي وأجر عظيم أجر وين بإلهي السيء والله سبحانه وتعالى أعلم.